أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا لير آدي أدباني سلام يا ملول بود joogtin waxaan ilaahay waqti wahadeen wacnaado kusoo dhawaada maanta sheekada yar ee kooban rabayna in la wadaago. Waxa jiri waawayada kamida imperator in xukumi jira wadanada kamida imperatorkaasi ama xaakimkaasi wuxuu ahaan jiray nin aad iyo aad isku maqan oo wuxuu xiranaya wuxuu cabay wuxuu cunay inta badan aad u daneeya. maalmaha kamida ayuu suuqa u dhaadhacay kadibna wuxuu tagay wiil dharka tolo wuxuuna ka yiri waxaan rabaa inaad dhar ii tosho wanaagsan oo qurux badan. wiilku wuxuu ahaa wiil aad u maskax badan wuxuu ka yiri maanta waxaan ku talayaa dhar sixriya dharkaasi cid kale ma arkayso kaliya waxa arkayo dadka maskaxda badan leh dadka kale ma arkayaan. wuu yaabay imperatorku wuxuu yiri waayahay dharka ii tol ma wisugi kara intaad ii soo toleysid qasrigana igu keen. wiilkii maalmaha kamida ayuu wuxuu tagay qasrigii kahorna imperatorku wuxuu la wadaagay arinka wasiirkiisa iyo xaashiyada qasriga balaadka ayuu la wadaagay wuxuuna u sheegay in dhar noocaasa loo keenayo. kadib wiilkii markii uu qasrigii tagay gacmihiisii maran buu soo fidiyay wuxuuna iska dhigay nin dharka u dhiibay imperatorka wuu yaabay uu arkaya inuu gacmo maran inuu ku soo fidinayo laakiin hadana wuxuu xasuustay hadalkii wiilku yiri wuxuuna isiri anu isiraahdaa ninkani waxba ma garanayo ama waa bila aqli dadkana waad u sheegtay ama yiraahdan ninkan nin wax garanaya maaha. wuxuu iska dhigay sidii nin dharka arkayo oo kale markaas oo hadana ka helay oo kale iska dhigay. wasiirkiisii uu saaw eegay wasiirkiina markuu arkay inay gacmo maran uu wiilku u fidiyay hadana isaguna wuxuu ka fikiray hadii aad tiraahdo dhar ma jira dhar ma arkayo inuu ka yiraahdo imperatorku waxba ma garanaysid ama uu ka cadhoodo shaqadana laga eriyo. dadkii xaashiyada ee meesha joogay sidoo kale iyaguna waxay isdheen hadii aad tiraahdin aaway dharku anma la yiraahdo waxba ma garanayaan dadkan kulligood iyaguna waxay muujiyeen ijaabkooga iyo inay ka heleen yacni dharkaas ay muujiyeen dhamaantood. wuu yaabay imperatorka isagii oo yaaban ayaa waxaa dhacday ciid markaa maalin ciida ayaa jirtay oo muusim ahayd oo ugu talagalay inuu dharka xidho imperatorku. wasiirkiisii baa wuxuu u sheegay dadkii oo dhan inuu imperatorku soo xiranayo dhar sixriya oo laakiin cidda maskaxle unbaa dharkaasi arkaysa cid kasta ma arkayso. dadkii magaaladu waa isku soo baxeen si loo arko dharkaas sixriga ah. maalinta mowqifkiisii buu la baxay kadib dharkii buu xidhay sixriga ahaa wuxuu iska dhigay nin xidhan dharkii sixriga ahaa. dadkii oo dhan ba waxay muujiyeen ijaab waaw dhar sixriya weeyaan dhar caynkan weeyaan dhar qurux badan weeyaan. qof kasta wuxuu isleeyahay hadii aad tiraahdo dhar ma arkayno alma lagu yiraahdo waxba ma garanaysid waa dadkii shicibka ahaa. kulligood waxay raaceen yacni waxay iska dhaadhiciyeen hadii aad tiraahdin dhar ma arkayno in hadhow imperatorku si kale u arkayo inuu ka xanaaqayo inay dadku u arkayaan maadaama qof kasta leeyahay waa dhar sidani hadii aad ka duwanaato tiraahdo dhar ma arkay arma lagu yiraahdo qofkan waa qof qabiya oo dadku ku arkaan dad qof aan waxba kala garanayn. adiga inan yar oo ilmo yar ahaa markaa ayaa markaa hooyadii ka yiri isagoo weliba hadlaya oo qaylaya si xooga u qaylaya ayuu yiri hooyo imperatorku uu qaawan yahay. dadkii oo dhan baa aamusay wiilkii yaraa baa la eegay imperatorkii baa ka yaraa eegay waa la isku naxay fadeexada meesha ka dhacday wixii oo dhan. imperatorkii baa yiri degdeg ha laga celiyo qasrigii ha lagu celiyo. qasrigii baa dib loogu celiyay kadibna wuxuu dhar iskeena dhar baa loo xiray sidii buu markaa ku soo baxay. kadib wuxuu jeediyay khudbad uu leeyahay tani waxay tusaale u tahay in dadka aan xukumay ay yihiin dad xoolo ah oo yacni aniga hadaan qalad kasta ku jiro wax kasta hadaan sameeyo dad aniga ay qaban karin inay yihiin. taana waxaan u maleynayaa inaan anu ka dambeeyo oo anigu sida aan ahay inaan wax ka bedela muhiim ayay tahay. inaan dadka yacnihii aan caburin yacnihii maadaama dadka caburinayo oo ay dadkii ka baqayaan mar walba inay aniga ay arkaan qof yacni waxba hadal laga horkeeni karin waa dhibaatadaas oo kale ay qofka gelinaysaa in ay dadku noqdaan dad xoolo ah. marka qofka liidarka saxda waxa loo baahanyahay inay ku xeersanaadaan dad qaban kara isaguna inuu noqdo qof mutawaadic qof aan kibir badnayn qof wax loo sheegi karo qof la qaban kara inuu waa bini aadan qalad buu ku dhici kara laakiin qofku hadii uu أو أركو لكن إن أنا لقيت بهالي كل حاجة يقصر رسمة دام متاجية يسوي باور كعيستو دكتاتر أو نقطة طبعا تذكر حوالي أي سكان قانون عند بهذا لقى سعري بين قانون because إمبراطورين بدن أما
emperor badan ama xukaan badan ba waxay adeegsadaan xataa dariiqada alqamac yani in dadka la dhibaateeyo oo la xiro oo dadka yani qofkii ka soo horjeesta la xirayo ama la dilayaba way dhacdaa marka waa dhibta iminka inaga in haysato kala sheekadan waxa laga faa'iidayaa dhibtan inaga in haysato hadii aan Soomaalinahay xukaamtiin waa xukaam saas oo kala waa xukaam aan la hadli karin iyagu ana amiira oo waxba loo sheegi karin dadka ku xeerana waa dad dantooda eeganaya waa dad dantaada hadaad wax u sheegto an muku eriya ama shaqadaada weyd waxyaabo noocaas markasta ka fikiraya laakiin waa inay qaban karaan hadii la helayo dad qaban karaya xukaamta dad qaban kara hadii la helo wallahi aan waxaan aaminsan isbedel badan baa la sameyn karaa waxyaabihii imperatorku markaa khudbadiisii uu meesha ka jeediyay oo kalena waxa kamid ah in uu yani au kala leader fiican hada tahay waa inaad xataa qofka ugu yar aad ka qaadan karto mashruurad ama waanaad ka qaadan karto sida ilmaha yar oo kale waa inaad qof yar qof weyn wax ka qaadan karto waa inaad noqon karto qof wax qaadan kara oo waana qaadan kara oo no waxa sameeyay waa qalad marka lagu yiraahdo qaadan kara waa inaad shicibka dhaxmartidood u deedegtid oo aragtid kooga yani dhibaataysan kooga kale waxyaabaha soo badan waa leaderka fiican baa looga baahan yahay laakiin inaga wallahi markaad aragto qisadaasi يعني aad bay noogu dabaqmaysaa maanta aad bay noogu dabaqmaysaa dadku waxa xoolo kale dadku iska noqdeen wax kasta way aqbalayaan dib walba iyo tacadi kasta loo geystaa shicibka cidna kama hadasho waa loo raacaa iyagoo dib kasta ku jira the next time marka election ama la sameynayo ama la dooranayo qof waa dooranayaan qabiilun bay ku dooranayaan bas qofkayga hay soo baxo isagoo ku gaajoonay isagoo waxba ku haysan isagoo tacadi kasta ku socdo qofkayga hadana muxuu haayay hala isoo saareyn waa xoolanimo weyn maskaxdii ma shaqeynayso dadkii maskaxdii way fadhiisatay marka waa in la helo leaders fiican oo caafimaad qaba iyaguna dadkooga maqli kara oo wax ka qaadan kara aad bay muhiim u tahay dadku saa umay wax ku noqon karaan runtii intaas aan ku soo gabagabeynaa maanta waa mahadsantiin dhamaantiin aad baan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh